gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wiciid injineer Faysal Calwaraabiye gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Axmed Muumiseed ayaa iyaguna dhankooda ka dhawaajiyay in xukuumadda looga fadhiyo in doorashada waqtigeeda ku qabato isla markaasina ay awdo gadaloolooyinka ay muujisay intii ay talada dalka haysay meesha waxaa soo socota laba doorashana meesha wayna sugayaan ilaahay yiraaho abaabulna kama socdo iyo wax xilkaas oo xilli ka saaraya waxana weeye waxa la iska bartay inta la iska seexdo oo hawshii qaranka la gudan waayo in haddana abaalgud la isku siiyo muddo kordhis haddana taas oo la soo afjara istorka ixtiraama qaynawanka la ixtiraama adduunka lama arag hay'ad waqtigeedu dhamaado oo meesha iska fadhiya lama arag adduunka lama arag hay'ad isku kordhisa sida guurtoo kale adduunka lama arag hay'ad awood u leh wax u kordhisa wax u kordhisa wixii oo dhan waxa lagu arkay dalkeena lagu arkay marka waxa weeye si looga hortago waxa weeye inaan arrintu si hore ahaanin ixtiraamkii iyo dulqaadkii uu dhamaado cid sharci u leh ma jirto waqtigeeda ma ku dhamaado inay meesha sii fadhido waan ogtiin 2009kii dawladda hore riyaale waqtigeeda ma ku dhamaaday murankii la galay in yar u jirsanay anaga kulmiye aan dawlad ku magacaawno halkii maanta taagantay marka wixii anaga aan kulmiye ka shaqeyn jiray 2009kii tiiba maanta ay dul taagan Axmed Muumiseed gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isna dhankiisa sheegay in xukuumaddu aanay doonayn inay doorashada qabato taasoo ku sababeeyay habacsanaanta ka muuqato gudida doorashooyinka waynu ka dheersanahay runtii xaaladda dalkeenu maanta ku jiro oo marka la eego siyaasad ahaan aynu oo ku jirno aynu ka xanimannahay wadamadii jaarka aynu aan leeyahay ilaaqaadka aynu lahayn ama Ethiopia ha noqoto ama Djibouti ha noqoto way naga xidhiyiin dawladda oo aad ogtiin maanta kolley talada dalka ma ha noqoto dhinaca nabadgelyada ama ha noqoto xuduudaha ama ha noqoto ilaaqaadka ay la leedahay wadamada jaarka ee caalamka inaad ogtiin inay ku fashilantay taladii dalkan ee shacabka reer Somaliland codka ugu dhiibeen aynu ka hortagaynaa inay la timaado in doorashada waqtiga ku qarsoomay taasina ku hortagaynaa taasaan u midaysanahay in doorashada waqtiga ku qarsoonto si dimuqraadiyadda dalkan ay u sii socoto ayna waqtigu sida gudoomiyuhu sheegay Faysal cid walba markuu waqtiga ka dhamaaday inaan loo kordhinin taasoo keeni doonta in qarankan wixii asadkii dadku wada lahaa hadda waqtiga mar walba in doorashada la qabto inuu meesha ka baxo soo yimin ayaa isku keentay quwaddan maanta runtii aad u weyn madashii xisbiyada mucaaradkii taasaa isku keentay runtii